shirkadda Facebook ayaa samaysay qaab ay daaha uga rogayso xogta ay ku ururiso macaamiisha. Dad badan ayaa laga yaabaa inaanay jeclaysan waxyaabahan ay arkeen. tusmo laga bixiyo Facebook activity oo qofku ka heli karo qaybta wax looga bedelo bartiisa ayaa waxa ay muujinaysaa dhammaanba barnaamijyada iyo baraha internetka kuwaas oo waxooga ku saabsan soo diridda Facebook isla markaana kadib loo isticmaalo xayeysiimo. Waxa ku suuro galaysa in meeshani aad ka tirtirto waxyaabaha aad isticmaashay sida aad isaga ilaaliso hab dhaqanka kale ee duwan, waxaana ay beegsan tahay hawshaasi hawlo tacaddi ku ah bulshada. hase yeeshee qof habeera ayaa sheegay tallaabadaasi aanay saameyn weyn ku reebi doonin faa'iidada shirkadda. haatan si ay arrintaasi u socotaa waxaana tusahaasi ka shaqeynaya Ireland, Kuuriyada Koonfureed iyo Spain, balse hadafku waxa uu yahay in barnaamijkaasi uu dunida oo dhan ku faafo. hindisahan ayaa imanaya xilli shirkadda Apple iyo Meta ay goor horeba qaadeen tallaabooyin ay kaga hortagayaan Facebook iyo kuwa kale oo adeegyada bixiya si aanay macaamiishooda ula socon hadda markii ay meel galaan. hay-adda maamusha tartamada ganacsiga ee Jarmalka ayaa waxa ay shirkadda u sheegtay in loo baahayay in si weyn loo xadido qaabkan ay xogta macaamiisha u ururiso misana ay isugu darto. Facebook ayaa waxa uu xogtani ka urursaday goobaha ka baxsan barteeda, waxaana marka uu qofku bartiisa Facebook uu ka soo galo barnaamij kale ama waxyaabo u badan tahay in bartiisa isticmaalayo waxa loo yaqaan Facebook Pixel oo lagu socon doono dhaqdhaqaaqa Facebookiisa. taasi waxa ay sababtay marka aad goob cusub Facebook aad ka soo gashid oo aad arkaysid nus saac kadib in bartaadii Facebook goob kale laga galay isla markaana xayeysiisyo kala duwan ay ku imanayaan. qoraalkani ka soo baxay shirkadda Facebook ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay sida dadkani barnaamijka ula falanqeeya waxa ay uga dhigan tahay xayeysiismaha ganacsiga ee dhanka Facebook. waxa ay shaki ka qabaan dadka barnaamijkan isticmaala inay kala kulmaan waxyaabo aan wanaagsanayn, waxaana loo baahan yahay in hal arrin looga ogaado mabda ama mar haddii ay wadadaasi ku soo dhacdo wadda aan munaasib ahayn. dadka isticmaala bartani Facebook ayaa siyaabo weyn uga hadlay Facebook Pixel, waxaana ay sheegeen dhibaatooyinkii sidoo kale faa'iidooyinka ay adeegan u soo kordhin karo shirkadda, balse shirkadda ayaa shuruud ku xidhay adeegani. shuruuddaasi oo noqotay shirkadda Facebook ay joojin doonto inay ku basaasto waa haddii si aad dalbatid. halku dhigan ay shirkadda Facebook adeegani ku xadida ayaa waxa uu imanayaa xilli ay dadka bartani Facebook isticmaala ay dhammaantood siyaabo kala duwan uga hadleen adeegani cusub. shirkadaha la tartama Facebook ayaa iyaguna siyaabo kala duwan u soo bandhigay adeegani iyaguna ka turjumaya khasaaraha iyo dhibaatooyinka u keeni karo bulshada adeegani.